gabar Soomaaliyeed oo 15 jir ah oo ku nool dalka Masar ayaa si weyn loo hadalaya kadib markii ay dishay darawal mootada loo yaqaan tuk-tuk la sheegay inuu isku dayay inuu kufsado. gabadhan Soomaaliyeed ayaa isku soo dhiibtay booliiska Masar waxayna qiratay inay dishay darawalka oo ay ku eedeysay inuu isku dayay inuu faraxumeeyo gudaha gobolka Gaza. gabadhan Soomaaliyeed ayaa timid saldhigga booliiska ee 7 Oktoobar iyada oo la socday qareen xiriir la leh hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga dalka Masar. waxa ay sheegtay in aysan ku talagal u dilin ninka balse uu diiday in uu joojiyo mootada sidoo kalena uu la soo baxay mindi uu rabay inuu ugu hanjabo si uu faraxumeeyo isla markaana uu isku dayay in markii hore uu dhaawaco balse ay iska difaacday ayna gacanteeda soo gashay mindidii kadibna uu sidaasi ay ku dishay. kilida bidax ayaa la sheegay in ay ka gelisay tooreyda waxaana xiriirlanta Masar ay sheegeen in dhammaan sheegashada gabadha ay tahay mid sax markii baaritaan la sameeyay. gabadhan ayaa la horgeeyay xiriirlanta waxayna xabsiga ku jirtay muddo 4 maalmood ah iyadoo baaritaan lagu waday. xiriirlanta guud ee dalka Masar ayaa amartay in la sii daayo gabadhan inta laga sugayo baaritaanka dilka oo loo geystay darawalka.